saddexdan dhaqan ee Soomaalida ayaa ka yaabin doono laakiin inaga ka Soomaali ahaan waa nagu qaali ma jeceshahay inaad ogaato waxa ay kala yihiin ila joog ila dhamaadka muuqaalkan imaam boqor iyo suldaanba marka aynu caleema saarno ayana caano ku shubnaa waan astaan dhaqan u soo jireen caano shubku waa mid ka mid ah dhaqamada looga qayb qaadanayo in lagu soo dhaweeyo madaxdeena wax badan oo ku saabsan hogaamintooda iyagu waa wadaado door weyn ku leh dhaqanka Soomaalida iyagu waa hagayaasheena ruuxiga ah waxayna bulshada ku hagaan diinta Islaamka dhaqanka saddexaad ee ka yaabin doona ayaa ah doorka ay geedaha ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ma aha oo kaliya in ay bixiyaan har geed fadhi waa dhaqan Soomaaliyeed oo ay geedaha hoostooda isugu yimaadaan bulshada si loo xaliyo dhibaato bulsho sidoo kale waa halka qoysaska arooska iyo aroosada ay kulmaan si ay uga hadlaan arinta guurka waana astaan midaysa dhaqanka Soomaalida ma dhaqan kale oo ka yaabiya ayaa jira aragtidaada noogu sheeg qaybta faalada